waqtiyadii dambe kaamirooyinka wax waardiyeeya waxaa lagu xiraa goobaha oo dhan sida wadooyinka, goobaha ganacsiga, hoteelada, iskuulada iyo meelaha ay dadku ku kulmaan. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah waxyaabaha la yaabka leh oo ay duubeen kaamirooyinka qarsoon. Intaanan u gudagelin, haddii aad ku cusub tahay subscribe dheh si aysan kuu dhaafin muuqaalada cusub. Waxa ay baahiyeen booliiska Shanghai video yar oo muujinaya laba nin oo isku dayaya in ay jabsadaan goob ganacsi. Hase ahaatee labadaasi nin waxay ahaayeen kuwo dabaalla ah. Tuugii koowaad waxa uu ku guuleystay in uu jabiyo dhalada, halka tuugii labaadna uu madaxa kaga dhuftay saaxiibkiis isagoo doonaya in uu isna sii jabiyo dhalada. Sidaa ayuuna ku waayay xusuusta, waxa uuna ku qasbanaaday tuugii labaad in uu saaxiibkiisa meesha ka qaado. Waxay kaloo duubeen kaamirooyinka qarsoon madraso ku taala magaalada Corky, Ireland. Video naxdin leh, albaabka laga soo galo madrasada oo furmaya haddana xirmaya, iyo qaanadaha ardayda oo nuxnuxsanaya, sidoo kale calaamad muujinaysa in aan meesha la mari karin oo haddana dhacaysa. Waxa uuna sababay videogaasi in ay arday badan ka baqaan madrasada. Macallin ka mid ah macallimiinta waxa uu yiri, waxaan u malaynayaa in madrasada uu degan yahay jin sababtoo ah eygayga ma soo galo madrasada. Ninkani waxa uu ka adeeganayay mid ka mid ah goobaha ganacsiga. Waxa uu arkay miyaarad jirkiisa si dhammaystiran u muujinaysa. Kadib waa istaagay waana iscajab galiyay ilaa markii dambe uu gaaray in uu dharka iska bixiyo. Laakiin maskiinkan ma ogeyn in miyaaradda agteeda ku qarsan tahay kaamiro. Waxay duubtay kaamiro qarsoon oo ku xirneed guri ku yaala Washington. Dhacdadan haweeney xadaysa alaab hortaalay guri. Intii ay qaadaysay ayay la dhacday, dhaawac ayaana ka soo gaaray lugta. Kadib waxaa imaaday saaxiibkeeda si uu alaabta hartay u qaado, iyadana u saaro gaariga. Hase ahaatee kaamiradu waxa ay duubtay gaariga ay wateen taargadiisa. Si dhib la'aan ah ayay ku qabteen ciidanka labadooda. Sidoo kale waxa ay duubtay kaamiro qarsoon oo ku xirneed mid ka mid ah dhismooyinka magaalada Vancouver. Mid ka mid ah shaqaalaha u geeya dadka soo dalbada pizza Domino's isagoo ka cunay waxyaabaha kor saaran pizzada. Waxaana arkay arrinkan isagoo sameynaya ninka amniga u qaabilsan dhismaha. Waxa uuna u sheegay arrinkan ninka maamulka ka ah maqaayadda pizzaha samaysa. Kadib shaqaalihii sameeyay arrinka, sida ayuu ku waayay shaqadiisii. Videogan waxa uu naxdin galiyay dad badan oo isticmaala internetka. Marka hore waxa uu ku bilaabanayaa gabadha oo kaligeed ciyaaraysa. Markii ay daashay waxa ay istiri wax yar dhulka fadhiiso. Muddo yar kadib markii ay damacday in ay istaagto, qof kale oo ka muuqday miyaaradda ayaa ka hor istaagay, dharkeeda oo kalena wata. Iyadoo naxsan ayay ka baxday meesha. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay, subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub.